wakaalada wararka Iran ee Faras ayaa saaka sheegtay inuu dab ka kacay markab dagaal meel u dhow afaafka hore ee gacanka Cumaan. markabkaas ayaa waxa uu qayb ka ahaa maraakiib dagaal oo Carbis military ka waday meel ka baxsan xeebaha dalka Iran. kooxaha dabdemiska ayaa ka qayb galay deminta dabka ka kacay markabkaasi oo ku sugnaa meel u dhow dekedda magaalada Jasaaka ee dalka Iran. badmaaxayaal la socday markabkaasi ayaa waxa la sheegay in la soo badbaadiyay iyadoo aan wax faahfaahin laga bixin waxa sababay dabka ka kacay markabkaasi. bishii April ee sanadkan markab dagaal oo Iran leedahay ayaa waxa lala beegsaday qarax iyadoo wararku sheegayeen markabkaasi ay la kacday miino nooca soo boodada ah. sanadkii la soo dhaafay markab dagaal oo Iran leedahay ayaa waxa si keris ah ugu dhacay Kantal xilli uu ka qayb qaadanayay Carbis military oo socday waxaana ku geeriyooday 19 badmaaxayaal ka 15 kalena ay ku dhaawacmeen.